kulanti hagaagsan halkani waa Durida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa qayb ka ah xiisad xoogan oo ka dhalatay qaabka loo maareynayo doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo adeegsaday awood dheer iyo ciidamada ADMISna ku wareejiyay ammaanka goobta doorashada. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Ciyaar oo sheegay inaysan damaanad qaadi karin amniga doorashada guddoonka golaha shacabka sheegana in uu doonayo in muddo dheer lagu daro xilliga doorashada. Farmaajo oo sheegay in aan la qaban karin doorasho hareer marsan heshiiskii 17 September sidoo hadalka u dhigay dhabarjaminta ku sameeyay doorashooyinkii. xibno ka tirsan guddiga doorashooyinka qabanqaabinaya ee guddoonka golaha shacabka oo sheegay in aan doorashada aysan ka qayb gali karin xibno laga soo doortay magaalada Caalwaaq iyo guddoomiyaha guddigaasi oo been abuur ku tilmaamay hadalkaasi. qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsoon ayaynu ku faaqidi doonaa warka Dunida TV oo diyaar garooba. aynu ka horreynaa xiisad xoogan ayaa ka dhalatay habka loo maareynayo doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo nabad sugidda ayaa lagu eedeeyay inay qaadeen tillaabooyin qareer marsan nidaamka iyo sidoo kale howlaha sugidda amniga doorashooyinka. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si weyn uga carooday tillaabooyin xiga oo ay qaadeen xibno ka tirsan booliska iyo taliyahooda Master Xijaar. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa amar ku siiyay ciidamada ADMIS ee loo aqoon uga horay AMISOM inay si rasmi ula wareegaan howlka doorashada oo ay sugaan ammaankiisa. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa amray in ciidamada ADMIS ay si degdeg ah ula wareegaan ammaanka teendhada afisyoone ka hor doorashada guddoonka golaha shacabka. anigoo tixgelinaya caqabadaha amni ee lagu carqaladeynayo dhamaystirka doorashada waxaan faray ciidamada nabad ilaalinta ADMIS inay si degdeg ah ula wareegaan amniga teendhada afisyoone si ay u taabagasho doorashada guddoonka golaha shacabka uguna diyaar garowno qabashada madaxweynaha bisha soo socota ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. hoggaanka ADMIS waxay si dhow la shaqeyn doonaan xafiiskayga iyo xafiisyada wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga iyo waliba guddoonka doorashada ayuu yiri. sidaas darteed liiska xildhibaanada teendhada afisyoone galaya waxaa soo gudbinaya guddoomiyaha ku meel gaarka kadibna waxaa hubinaya ADMIS oo gudbinaysa xafiiskayga. tallaabadan uu qaado Rooble ayaa imaadaysa iyadoo cabsi xooggan uu ka taagan yahay habka loo maareynayo amniga doorashooyinka. guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashooyinka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in xaruntii guddigu ay ku shaqeynayeen ee Villa Hargeysa maalinkii shalay loo diiday oo guddiga laga soo ceeriyay. wararka ayaa sheegaya in ciidamada ADMIS ay ammaanka gacanta ku hayaan goobta ay doorashadu ka dhacayso. waxaa sidoo kale la sheegay in xubnaha booliska Soomaaliyeed lagu amray inaysan goobtaasi imaan karin maadaama aysan fasax u haysan inay ka qayb galaan sugidda amniga doorashooyinka. arrintan ayaa mar kale cirka ku sii shareeraysa in ay meesha ka saarto arrimaha doorashooyinka. dib u dhacyo ayaana suurtagal ah ayay leeyihiin dadku in laga damacsan yahay ujeedka la doonayo in lagu carqaladeeyo doorashooyinka. dhanka kale madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war ka soo saaray tillaabada uu qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray ku soo koobay 6 qodob oo uu ku sheegay in ciidamada ADMIS aysan habraacyada amniga lagu sugayo aysan ku xusnayn gaar ahaan habraacyada ay ansixiyeen madasha wadatashiga qaranka. qoraalkan oo jawaab u ah mid saacado ka hor xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ka soo baxay waxa uu ku sheegay madaxweyne Farmaajo in ADMIS isbedel lagu sameeyay isla markaasna howlaha doorashooyinka ay boolisku xilsaaran yihiin. Farmaajo ayaa ku taliyay in doorashada laga reebo xildhibaanada beeshiisa ee baarlamaanka ka soo gala gobolka Gedo kadibna heshiis ay ka gaaraan golaha wadatashiga qaranka ee Rooble iyo maamul goboleedyada. Farmaajo waxa uu isku dayayaa inuu go'aamada la xiriira arrimaha doorashada gobolka Gedo oo wareejiyo madasha wadatashiga qaranka taas oo lagu sifeeyay in mar hore burburtay. waxa uu sheegay in doorashooyinka aysan ka qayb gali karin xubnaha lagu soo doortay
magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo taas oo uu sheegay in sharciga hareer marsan tahay. waxa uu yeeray in doorashadaas ay hareer marsan tahay doorashadii 17 September taas oo ahayd mid waafaqsan arrimaha doorashooyinka. dhankiisa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Xijaar ayaa laba goor siyaabo kala duwan u hadlay. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. taliya Xijaar oo markii horeetay warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay saq dhexe habeenkii xalay la wareegayaan gudaha xarunta xalane gaar ahaan goobta lagu qabanayo doorashada ee Afisyoone. waxa uu sheegay in halkaas ay geey doonaan eeyaha waxbaara iyo sidoo kale qorshaha la xiriira qabashada doorashada oo amnigooda ay u xil saaran yihiin. Xijaar ayaa sheegay in iyagu mas'uul ka yihiin sugidda amniga oo ay u xil saaran yihiin inay sugaan amniga doorashooyinka. waxa uu sheegay in dadaal xoogan uu ku bixinayo sidoo meesha kaga saari lahaa qorshaha la xiriira arrimaha sugidda amniga doorashada guddoonka. balse taasi bedelkeeda cabaar kadib shir jiraayad oo mar kale uu qabtay habeenka xalay General Xijaar waxa uu ku sheegay inaysan sugi karin amniga xarunta Afisyoone oo uu sheegay inaysan damaanad qaadi karin doorashada xildhibaanada. taliya Xijaar waxa uu muuqdaa in uu laba goor kala hadlay asagoo kala adeegsada hadallo kala duwan oo iskhilaafaya. shirkiisa jaraa'id ee dameeta waxa uu ku sheegay inaan loo soo gudbin liiska xildhibaanada oo ay ahayd in 2 maalin ka hor loo soo gudbiyo iyo dadka ka qayb galaya. balse ismuuse weydiin saacad ka hor inuu sheegay in ay caawiso dhexe amniga la wareegayaan oo ay iyagu ammaanka u xil saaran yihiin goobtana ay yageynayaan. dadka ayaa isweydiiyay su'aalaha dambe miyaa saxa oo ma waxay ahayd in mar hore loo soo gudbiyo masatii hore ayaa sax ahayd oo waa uu haystay liiska kadibna waxyaa iska bedelay. dadka falanqeeya arrimaha amniga waxay sheegeen in taliya Xijaar uu qaatay shaarka siyaasadda asagoo iska diiday inuu ku shaqeeyo shuruucda booliska ee ahayd sugidda amniga doorashooyinka. ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa udub dhaxaad u ahaa sugidda amniga iyo inay ka hortagaan wax walba oo saameyn kara dhinaca ammaanka. waxa uu iminka u muuqdaa taliya Xijaar in uu iska diiday amarada dhinaca doorashada gaar ahaan ra'iisul wasaaraha maadaama asagu uu qaabilsan yahay dhinaca ammaanka doorashada. haddana ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda ayaa laga aamin baxay sida muuqata taas oo keentay in xildhibaanada amnigooda lagu wareejiyo ciidamada ADMIS. walaa xoogan ayaa ka taagan habka ay doonayso Villa Soomaaliya inay u maareyso doorashadii ka dhacday magaalooyinka Garbaharre iyo Ceelwaaq. farmaajo ayaa isku dayaya tilaabooyinkii ugu dambeeyay oo hadii looga guuleysto uusan rajo daba ka qabin arrimaha doorashooyinka. walaa xoogan ayaa muuqata inuu soo wajahay Villa Soomaaliya iyo saaxiibadeeda dhinaca amniga u qaabilsan waxayna doonayaan inay abuuraan mowjado kale oo ay ka mid tahay isku dhacyo ayuu yiri mid ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda. taliya Xijaar hadalka ka soo yeeray ayaa durbadiiba sababay hadal hayn xoogan oo ku saabsan doorka ciidamada boolisku ay ku leeyihiin ammaanka maadaama aysan sugi karin xarunta ay ka dhacaysa doorashada oo kaliya. xubno ka tirsan guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka ayaa sheegay in aysan doorashada ka qayb galeen xubnaha lagu soo doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo sidoo kale Garbaharre. xubnahan ayaa sheegay in aysan ka qayb galeen xildhibaanadaas oo ay sheegeen in la isku haysto. waxay sheegeen in warkaasi ay loo ogyahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee qabanqaabinaya doorashada guddoonka iyo xubnaha kale. balse taasi waxaa ka soo daba hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qabanqaabinaya guddoonka xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo been abuur ku tilmaamay hadalkaasi. waxa uu sheegay inaysan ka warqabin meel lagu shiray iyo meel looga hadlay arrin la xiriirta xildhibaano. waxa uu la yaab ku tilmaamay in xildhibaanada la soo siinayo kaararka kuwa saxda iyo kuwa aan saxda ahayn aysan wax shuqul ku lahayn guddiga qabanqaabinaya doorashada guddoonka oo ay fulinayaan oo kaliya waxay u soo gudbiyaan guddoonka kumeel gaarka ee golaha shacabka. la yaab ayay ku noqotay xubnaha kale ee guddiga iyo gudoomiyahooda in xubno ka tirsan guddiga ay sheegaan in la wada qaatay go'aan noocaas
waa la yaab ayuu sheegay inaysan sharciga meel la uga xusnayn isla markaasna aysan ka mid ahayn mabaadida ay ku shaqeynayeen in xildhibaan aqoonsiyo la siiyo kuwana loo diido ama in la kontaroolo xildhibaanada meesha imaanaya